Sida ay baahisay saxaafadda dalka Talyaaniga, macalinka kooxda kubadda cagta ee Chelsea, Antonio Conte ayaa waxa uu ka jawaab celiyay xiriir ay la soo sameysay kooxda Real Madrid ee dalka Spain si uu u maamulo Santiago Bernabeu xilli ciyaareedka soo aadan, isla markaasina u noqdo beddelka macalinka reer Faransiis ee Zinedine Zidane. Sky Sports qaybteeda dalka Talyaaniga ayaa waxa ay sheegtay in maamulka kooxda Real Madrid ay xiriir la soo sameeyeen Antonio Conte, laakiin macalinka reer Talyaani uu iska diiday dalabka kaga yimid Los Blancos, waxaana uu ku wargeliyay inuu ixtiraamayo heshiiska uu kula jiro hadda kooxda Chelsea ee gaarsiinaya ilaa iyo dhammaadka xilli ciyaareedka soo aadan. Wararka dhawaanahan la isla dhex maraya ayaa waxay sheegayeen in tababaraha kooxda Chelsea Antonio Conte uu yahay bartilmaameedka koowaad ee kooxda Real Madrid kadib ka tagitaankii Zinedine Zidane ee kooxdaasi. Haddii uu Antonio Conte go'aansaday inuu ka dhaqaaqayo kooxda ka dhisan caasimadda Madrid ee Real Madrid, isla markaasina uu kansalo heshiiska uu Blues kula jiro, waxa uu ku qasbanaan doonaa inuu bixiyo adduun dhan 10 milyan oo euro si uu u kansalo heshiiska uu ku joogo garoonka Stamford Bridge, maadaama go'aanka uu noqonayo mid hal dhinac kaliya ka yimaaday. Laakiin sababta dhabta ee Antonio Conte uu u diiday shaqada kooxda Real Madrid ayaa lagu sheegay inuu doonayo sidii maamulka kooxda Chelsea uu uga heli lahaa lacagta magdhowga ah ee heshiiskiisa haddii ay shaqada ka caydhinayaan, halka isaga laga dooni lahaa in kooxdaas doonaysay ee Madrid ay bixiso lacagta uu heshiiska Blues kula jiray. Dhinaca kalena, wararku waxay intaasi ku darayaan in Antonio Conte uu ka walaacsan yahay qaabka ay Real Madrid u shaqayso, taasi oo ku salaysan diirad saaridda xiddigaha waaweyn, wuxuuna ninka reer Talyaani u arkaa inuusan ku habboonayn shaqada tababare ee kooxda reer Spain. Sida ay baahisay saxaafadda